aroortii hore saake ayaa magaalada Muqdisho waxaa soo gaaray diyaarad sida wafdi ka socda dawladda aynu walaalaha nahay ee dalka Turkiga. wafdigaasi uu hogaaminayo wasiirka caafimaadka dawladda Turkiga. sidoo kale waxaa garoonka Adaacadda soo caga dhigatay diyaarad nooca militariga oo ka socotay dalka Turkiga, taasoo loogu talagalay in lagu qaado dadka dhaawacyada culus qaba ee ku dhaawacmay qaraxii Sabtidii la soo dhaafay ka dhacay isgooska Soobe ee magaalada Muqdisho. wafdigani ka socday dalka Turkiga waxaa kulan soo dhaweyn garoonka kula qaatay ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya, ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka iyo qaar ka mid ah golaha wasiirada. ra'iisul wasaare Xasan Cali Kheyre oo kulan ka hadlay ayaa ugu mahadceliyay dawladda Turkiga iyo shacabkeedaba sida ay dhibaatada ula qaybsadeen ummadda Soomaaliyeed. dadka Soomaaliyeed iyo madaxda aniga iyo madaxweynuhuba aan ugu horeyna ma ilaawi doono madaxweynaha dawladda Turkiga, dawladda iyo shacabka Turkiga sida ay maanta iyo shalaba noo garab istaagnaayeen, berrina ay noo garab istaagnaan doonaan. waxay noqotay taariikh dalkeena iyo dalkiina ka mid ah. madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo, ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya mudane Xasan Cali Kheyre, gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Daabid Cabdi Maxamed iyo mas'uuliyiin kale ayaa ka qayb qaatay gurmad balaaran oo loo sameeyay qaar ka mid ah dhaawacyadii loogu talagalay in lagu qaado diyaaradda ka socotay dalka Turkiga. mas'uuliyiinta ayaa si damqasho leh xanuunka ula qaybsanayay ehelada iyo dadkii ku dhaawacmay xasuuqii ay kooxda argixisada Al-Shabaab ka geysatay isgooska Soobe ee magaalada Muqdisho. inta uu gurmadka socday waxay aragaygu qabanayeen dad aad u liita oo dhaawacyo culus qaba, qaarkood ma lahayn ogaal ama mir ay ku ogaadaan dhaqdhaqaaqa meesha ka socday. wasiirka caafimaadka dawladda Turkiga Axmed Damarjaan oo goobta kula hadlay warbaahinta ayaa sheegay in uu fariin ka siido madaxweynaha dalka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan. Cumhurbaşkanının ve Başbakanının selamlarını getirdim. Recep Tayyip Erdoğan ve Binali Yıldırım Bey'in selamlarını getirdim. waxaan salaan idinkaga keenay madaxweynaha Jamhuuriyadda Turkiga Recep Tayyip Erdoğan iyo ra'iisul wasaaraha Turkiga Binali Yıldırım. Geçmiş olsun dileklerini ve taziyelerini getirdim. waxaan idin keenay ay ii soo dhiibeen tacsiyo waan idin soo gudbinayaa. gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Daabid Cabdi Maxamed oo la hadlay warbaahinta qaranka ayaa fariin dardaaran u diray bulshada Soomaaliyeed, isagoo sidoo kale u mahadceliyay dawladda aynu walaalaha nahay dalka Turkiga iyo shacabkeedaba. walaalahan Turkiga aad iyo aad uga mahadcelinaynaa Soomaaliya oo dhan ummadda Soomaaliyeed hore ayay oo galeen baal dahaba aan taariikhda ay Soomaaliya ku leeyihiin iyo walaalnimada, gaar ahaan magaalada Muqdisho oo mar kale haddana u soo gurmadeen. aniga ka duq magaalo ahaan iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ahaan si gooni ay taabanaysaa. waxaan uga mahadcelinayaa sida walaalnimada leh, bini'aadanimada leh, degdega leh, deeqsinimada leh oo ay uga soo jawaabeen. aad iyo aad aan uga mahadcelinayaa taas. haddii aan ku laabto dalka Turkiga ma ahan kaliya inuu maanta dhaawac qaadayo diyaaradda timid ee diyaarad weyn ah, waxay keentay kaargo dawo ah oo loogu talagalay isbitaalada maadaama isbitaalada ay ka go'een. haba ugu badnaadaan isbitaalka oo Erdogan oo runtii dhaawacyo badan la geeyay, laakiin dhammaantood daawooyinka waa la geyn doonaa, daawooyinna waa keeneen. marka gurmadka degdega ee heer caalami ah uu sii socon doonaa. dalal badan oo ballan qaaday inay imaan doonaan insha Allah, laakiin Turkiga waa dalka si degdega uga soo jawaabay. dalalka soo socdana ayagana waa u mahadcelinayna insha Allah, waana sugeynaa du'a leeyahay. mar labaad iyo mar saddexaad maalinta barortiiqdan insha Allah markaan waajibkan gudano ayay ummadda Soomaaliyeed soo bixi doontaa. waxa dhacay waa gumaad cadowgaana sameeyay, mana yeeli doono. waxaan uga jawaabi doonaa dhammaanteen inaan ka dhiidhino oo aan wadajir u soo baxno oo aan aragno meel ay nimankan ka istaahilaan Soomaaliya ma lahan. magaalada Muqdishona meel kuma lahan, islaamnimana meel kuma lahan, bini'aadanimana meel kuma lahan. sidaa darteed dhalinyarooy xamar ka xoreeya xabaasha badatay. Nuur Saciid Taariib, raadiyo TV qaranka Soomaaliyeed magaalada Muqdisho.